safiya fargalka maanta aan xidhanaha loo xidhay jacayl baana loogu xidha jaarkas kaasoo kale ayaa jacayl loogu xidhay safiya waxa loo duleynaya waa lacag nothing else markii horena wax leeyahay 2,000 kan bishii buu bixin jirtay 3 sano $2,000 bixin jirtay balaas inay ka rartay qaahira balaas inay noloshiisa dhisto guri kireyso gaari u iibiso wax kasta u qabato السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaantiin oo dhan waan idin salaamayaa waa inaad ogaataan waxa maanta tusma la xiqdhabanayso maanta cadowga gacanta ay u gashay iyo wuxuu yahayba waa aynu ogaano maadaama inaan wax hore ogeyn inaynu ogaano weeyaan inaynu muxuu ahaayey la socono weeye waxa dhacay in waxa weeye inagu aynan noqonin dad wax lagu soo dhex tuuro uno yaabo oo waxa ceebta daawada waa inaynaan noqon laakiin waa inaynu sii ogaano waxa dhacay iyo hadday dhacdaba waxa soo socon doona marka xaajadii iyo duuduuban ayaan soo helay run ahaantii waxa safiye helay waxa dhibaatada ku dhacday waxay tahay meeshay ka bilaabatay waxa hadda haysta waxaysan sheegi karin waliba gabdhaha Soomaaliyeed inay ogaadaan baa loo baahan yahay gabdhaha Soomaaliyeed dhibaatada jirta ee cadawga ah oo inay ogaadaan baa loo baahan yahay waliba wiilasheena intii fiican Ilaahay inoo fiicneeyo meel aynu uga soconaa ma jirto iyagu bayna huran laakiin waa inaad ogaataa godadka qodan ee la doonayo halista in lagu rido waliba gabdhaha qurbaha jooga masiibo adduun baa dhacday masiibata ugu xun weeye in naftaada lala wareego xoolo lala wareegayno arki jirnay guriyo la dhacayno arki jirnay qof lala wareego oo noloshiisa la yiraahdo inta kaaga hadhay geerina ku diri maayo ku dili maayo nololna kuma ogol qof lagu yiraahdo isagoo nool lama arag lamana maqal safiya tusmo 3 sano ka hor ayaa la guursaday si xalaal oo sharaf leh oo laba qabiilo u kala doontay ayaa loo guursaday nin ay islahayd maanta ka meedho wixii ku soo maray oo guurkaaga ku deg ayay guursatay magaca ninka guursatay safiya waxa la yiraahdaa Cabdi Ciise Cajuun ayaa la yiraahdaa Cabdi Ciise Cajuun waa father of 7 children caruur leh oo reer leh qaahiru joogay markay guursatay noloshiisu may ahayn mid isku toosan safiya maanta iyada ku tacabtay sida qofka loogu tabco ee ilmahaaga aad ugu tacabtay aad u koriso jaamacad u geyso ayay ugu tacabtay inay maanta xoolo iyo wax walba iyo inay dhoofiso iyo inay kaxayso ay samaysay wiilkaas safiya iyadu maanta furaash xariira iyo raaxa ah oo jacayla ayay goglatay ay rabtay inay goglato guri yagleelato laakiin iyadu may gafana guursabay istiri laakiin furaashkii ay dhigatay mas baa ku hoos jiray mas ayaa ku hoos jiray iyadu waxay tiri 2 sano ku noolaa laakiin 3 years bay hel ku noolay 3 sanadood sanad bay ka jirtay waxaan rabaa xaqiiqda jirta inaan idin sheego safiya markii la guursaday arintaasi dhacday safiya horta way xanuunsanta sideeda ma aha she is not herself markii iyadoo hadda arinta ay ugu timid ay ka timid Mareykanka ay ka timid ee xagga tagtay waxay u tagtay cilaaj safiya waa la sixiray way xanuunsatay waxa way nolosheedii dhan baa lala wareegay telefoonkeeda waxa lagu xidhay wax la yiraahdo team view buu ku xidhay safiya iyadoo Mareykanka joogta ayaa la maamulay iyadoo Mareykan joogta baa waxa la ogaa nin wiilka Hargeysa jooga inuu soo wax qofka wacay inuu arko qofka soo message gareeyay inuu arko buu awood u yeeshay safiya waxa lagu sameeyay in wax kasto ay haysato la ogaado oo telefoonkaaga halka laga daawado not only TV iyo waxa telefoonka caadiga haysato noloshaada caadiga shaqo hadaa tagayso wax kasta hadaa tagayso waxa weeyaan safiya waxa la wareegay waxeedii oo dhan nolosha iyadoo ku jirta ayay maanta waxay u timid inay ilmaheedii xanuunsanayay caruurteedii ka soo tagto ay istiraahdo muxuu ahaayay iscilaaj ninkeediina wali isqabaan laakiin noloshu aad u xunto hel tahay Soomaalidan garanin safiya markay xagga tagtay waa la dabiibay quraan baa la saaray dadkii wax xoogaa way fiicnaatay culimadii way ula hadleen waxa lagu yiri fargal iyo bahar ay sidatay bixi fargalkaana bixi waxa weeyaan waxna looma qarin safarka fargalka iska bixi ninkaana ha u dhawaanin telefoon yuursan ka soo wici caadi baa loogu sheegay safiya wax kasta ayuu ogaatay maalmay ahayd safiyadeedii oo ay jacanigi waxa la yiri noqotay qof si hurdo ka soo kacay oo kale noloshay ku jirtay waxay ku jirtaba ay la yaabtay maalmo yar oo kooban
safiya iyadoo sidii ku jirto weli dawe calaajkeedii waxay u socdaan way ka farabaxsatay wixii ku dhacay oo haddana waxay gacanta ku dhigay wiilkii awalba gacanta ku hayay telefoonkeedii iyo fargalkii iyo waxyaalihii oo dhan martii baa lagaga celiyey safiya waxaa la saaray xitaa waardiya intaa la saaray baa la yidhi social media yay gelin iyadoo safiya saaran waardiye oo la hayo ay dhallinyaradii haysay ku tiri waan seexanaya madaxa ay xanuunaya telefoonka intuu ka soo wacay buu ku yidhi dhegayso inaanan arrinta dhacday ee snapchatka la geliyey shaqo aanan ku lahayn waa inaad wacdo nink waxa ku soo wacaya shiina culay markay la soo waco waraysanayay lahayd wiilkaasi waa beri isagaa ku yidhi qof kastoo safiya wacay oo waraystay ninku isagaa shaqo ku leh waa inaad wacdo arrinta beenisaa lagu yidhi safiya wallahi inaanan been idiin sheeganayo billaahi beeni baa lagu haddaad wacdaan oo lambarkeeda idin siiyo wuu maqlayaa waxaa kula hadlaysaan awooday ku diliid garaysana male haddaad been idinka ay doonaysaan safiya telefoonkeeda caawa haddaa wacdaan etoobiyuu joogaa horta wiilkii wuu baxsaday dirirna buu joogaa wiila reer jabuutiye buu la joogaa waana la qaban lahaa maanta safiya dadka iyadaa ka hortaagan safiya hadda waxa weeye bilkos waxbaa lagaa hayaabaa lagu yidhi safiya noloshaada wajaale maalintuu ka tallaabay muxuu yidhi wajaale maalintuu ka tallaabay wuxuu yidhi waan ka baxay xuduudda somalilan waxaanan kuu sheegayaa noloshaada inaanan geerina kaa dhigayn nololla aanan kaa dhigayn weligaana anigu aan ku leeyahay waxaad samayn kartaana ayna jirin waa safiye loogu hanjabay xuduuddii somalilanna waan ka baxay dirirna buuna joogaa cabdi ciise dirirna buu fadhiyaa safiya cid walba oo wax qaban lahayd iyadaa ka hortaagan hadday dadkoodu hadli lahaayeen ama asxaabteedu hadli lahayd oo waxa jira sheegi lahayd iyadaa odhanaysa anaa ku beeninaya soo fadhiisanaya waayo telefoonka inta lagala hadlo buu odhanayaa wallaahi waan soo dhigayaa hadduu qof hadlo anigu caawa arrinta aan qarxinayo dee isagu hadduu xiniyo leeyaha soo dhigo anaa qarxinayo caawa la taagani safiya horta waxay ku jirtaa waa noloshaas dadka waraysanaya safiya waxa weeye isagaa ka dambeeya inay iyadu cidda wacato oo la waraysto u sheeg naayaa haddii kale wallaahi billaahi tallaahi waxa dhaca waad arki qofkaa waa inaad ku tiraahdaa ninkaasi wax allaale waxa uu shaqo ku leeyahay dambiilii ma jirto horta safiya say ninka u difaacaysaa waa saa wallahi inaanan been idiin sheegin waxa weeyaan markaa isagii wax walba wuu la socdaa dadkiisiina wuu u sheekaynaya gabdhihii way xanaaqeen hablihii isaga la qabiilka ahaa maanta isaga inankaas ciida gale way xanaaqeen gabadhii damiir kasta way xanaaqday facebookiisa eega wax walba wuu daawadaa dadkana ma aqbalo laakiin safiya hostage baa lagu haystaa safiya waxaa lagu yidhi hadda ugu dambayntii finally $20,000 haddaad bixiso kiliibka waan tuurayaa kiliib baan kaa hayaaye $20,000 iga siiso haddii kale publican soo dhigaya safiya waxay u leedahay any minute nolosheedu way dhici kartaa inay destroy noqoto telefoon baa dhegta loogu hayaa safiya telefoon baa dhegta loogu hayaa waana lala soo hadlaya waxaa laleeyahay carkee somalilandna wuu ka baxay haddii la odhan lahaa ninkaa qabta oo maanta la odhan lahaa jigjiga lala hadli lahaa oo etoobiya lala hadli lahaa soomaaliya qaban lahaydna safiya iyadaa ka hortaaganba oole ma hadlayo yaan la hadlin yaan juuq la odhanin yaan la sheegin yaan la waxaynin billaahi calaykum soomaaliyeed maanta ninka xalaasha gabadha ku guursaday ee reerkeedii ka doonay ee adeeradeedii iyo aabayaasha walaalaheed ka doonay ee sharafta ku guursaday ee ay ku tabacday ee ay wadaagtay inay tidhi haddaad mid la dhaafdhaafayo ka dhigatid xariir ka dhigtid midun baa kugu qabsanaysa ay leedahay safiya mar buu unsigeeda iyo cadarkeedu baxayay safiya waxay gacanta u gashay wiilaan diin iyo dhaqantoona ilaalinayn bay u gashay dadkan maanta dhambaalka u dilayeyna dee telefoon inay kula hadalna mooyaane baxsayba horta ninkaasi maalintuu xadka ka baxay wajaale buu badheedhay wajaale markuu ka baxay xadkiisa ayuu horta badheedhay markii hore dhan wuu isnabayey safiya usoo tuura haddii inay nagu xisaabtanto oo wax ku dhici karaa jirin safiya usoo tuuraya inay sharafteedii iyo gabadhnimadeedii hagogan tahay safiya usoo tuuraya inay tahay hooyo soomaaliyeed gabadhee jeclaan lahayd caawaaga in lagu xidho telefoonkaaga nin soomaaliya jooga adigoo ingiriiska jooga inuu ku maamulo gabadhee jeclaan lahayd maanta adoo maraykan joogta in lagu maamulo gabadhee jeclaan lahayd maanta adoo hooya in lagu hostage gareeyo this is the reality ay ku nooshahay safiya ay ku nooshahay safiya waxa weeyaan dad ka dhiidhiya may waayin dad u hiiliyana may waayin xaqiiqdii markaan soo helay
dad maanta gobonnimada reerkaa ninkaasi ka dhashay wax ka qabtana lama waayin laakiin iyadii baa xanuunsan oo maskaxdeedii caadi ahayn oo go'aan gaadhi karin oo isu haysata inay qaflad ku jirto oo la leeyahay waa lagu dilayaa oo lagu leeyahay waa lagu ceebaynayaa oo la leeyahay lacag keen $2,000 buu qaadanayay biilka believe or not $2,000 every single month safiya baa lagu xujeeyay inay jirto iyadoo Mareykan joogta imagine hooyada joogta Mareykan ee aan decision gaadhi karin because caafimaadkeedii ma joogin she is not herself maanta maxaa idinku lahaa si xirto ma jirin safiya waxa weeyaan fargalka maanta aan xidhanaha loo xidha jacayl baana loogu xidha jaarkas kaasoo kale ayaa jacayl loogu xidha jacaylkii fargalkii loogu xidhayna fargal sixiran buu ahaayay balaayo kala kulantay oo iyadoo joogta Mareykan la abiyuusay oo iyadoo joogta Mareykan la yiri intaasoo lacag bilowba soo dir oo iyadoo joogta Mareykan qofka wacaya iyo qofka ila hadlaysa muxuu ahaa iyo aniga adiga hadashaba la rahaa safiya maanta waa hostage soo maydan arki jirin qof la afduubay oo meel cadow ku hayso safiya waa la haystaa waxa ugu daran qofku inuu ku qabsado waa inuu maskaxda laga qabsado caafimaadkaana lala tago safiya burca loo qaaday bilifono burca la geeyay rusheeye iyo waxa loo geeyay dadka halka joogay safiya maaha qof aynu oran karno why she did this why she didn't do that ma garanaysaa maanta wiilkan le 22 baan ka siisanayaa marwadeydii inaan ku fareexeeyo ee ay iga iibso ila waa ay iga iibso ma garanaysaa ay iga iibso ta waxaan leeyahay warniyo 40 baan ku siinaynaa deena hor imo waa akriimka nala gal ha isku yaraynin 40 baan ku siinaynaa taariikhda Soomaalidana waan kugu qoraynaa oo Cabdi Ciise Cajuun la yiraahdo ayaa sanadkii nooca ahaa xaaskiisii intuu taa ku sameeyay oo fiidyo qaatay oo sidaa yeelay ayuu iibiyay Google-kaana ku geynaynaa si loo soo hele dee soo baxo akriima nala gal lacagtana 20 baan kuugu darnay isagu wuxuu isiri safiya cunaha ku dhig waxa tira bahal la yiraahdo guduudane oo barigan gabadha yar ahaa ay ariga raaci jiray baadiyaha xoolaha laga ilaalin jiray guduudane markaa neefku ma qayliyo hadduu qabsado halka cunaha abuu ku dhagaa uu la fadhiistaa dhiigu ka jaqaa neefko baqtiyo buu sii daaya ma neefka dawacada iyo way qayliyaa guduudane lama arko ninkani marka waa guduudane gabadhan cunaha ku dhig buu isir cidina kuma ogaanayso Soomaaliya kuma ogaanayso waayo iyadiibu wuxuu gaarsiiyay heer ay isaga difaacdo oo ayna ka sheekayn oo dadkii markay yiraahdeen waanu muxuu ahaayay waanu ka hadlaynaa ay diideen waa iyadu u diiday oo markii la yiri halala hadlo ay iyadu diiday ma fahanteen walaalayaal marka Soomaaliya horta waxa jira waasaas tusmana love iyo jacayl iyo support ayaan u muujinaynaa waxaanu u sheegaynaa inaan sharafteeda waxba gaadhin waxaan u sheegaynaa inay still tusma tahay waxaan u sheegaynaa inay tusma ahaan doonto waxaan u sheegaynaa wax ka qurux badan qabiilkay ka dhalato difaaca inay difaacayaan oo Soomaalinimo ku difaacayno waxaan u sheegaynaa inuuna far nagala baxaynin qofkii damca tusmo inuu nolosheeda burburiyo no way inuu la tago ma garanaysaa inuu waxaan ka soo dhacaynin inuu isaguna qarsoonaado oo ceebtiisa la qariyo tusmana teeda la soo dhigdhigo ma soconayso banaankaas loo soo taxaya isagana anagu ma ogolin isbaaro gabdhaha Soomaaliyeed loo dhigto ma rabna gabdhaha Soomaaliyeed isbaaro in loo dhigto isbaaro no safiya arrinteedu Soomaaliya oo dhan inay gaadho weeye bal soo tuura wadnaha safiya arrinteedu Soomaali intay leegtay wayna ka qarnaqdo shanta Soomaaliyeed maanta soo ma joogo Itoobiya oo kilka shiraad ma joogo iga gaarsiiyay dadkii kilka shiraad bal ku taa wax la qaadan karo oo la oran karo bini aadan Ilaahay abuuray ayaa samayn kara maaha naagtaadii xaaskaagii because of money markii horna wax leeyahay 2,000 kan bishii buu bixin jirtay 3 sano $2,000 bixin jirtay balaas inay ka rartay Qaahira balaas inay noloshiisa dhisto guri kireyso gaari u iibiso wax kasta u qabatay noloshiisii oo dhan ay saa u tabantaabisay caawana waxa la leeyahay waynaad $20,000 keentaa waxaan ka hayaa clip baan ka hayaa naagtaad qabtay ee xalaasha lagugu meheriyay ee aad qabiilada ka doonatay ee wiiradka ka bixisay ee meherka ku mehersatay ee 3 sano aad qabtay ee xaaskaaga ahayd
adigoo xalaal lagugu dhalay oo nasaba oo aabbahaa joogo sidee baad ugu odhan kartaa lacag baan kaa doonaya haddii kale waan ku ceebaynaya noloshaadaan burburinaya xaggaad adduunyada kaga nooshahay